nabadda wadayaal iyo dhagaystayaalba waa xubin kale oo aad u xiiso badan oo aynu u bixinay adduumiye dowladaha. dowlad kasta oo burburta isla markaana soo kabsan weyda waxa burburkeeda ka dambeeya kana macaasha dad dana gaar leh iyo dowlado shisheeye oo isu kaashanaya sidii ay dowladdaasi ama nidaamkaasi meesha uga saari lahaayeen. haddaba dadka danaha gaarka leh isla markaana dalka u dhashay isla markaana duminaya dowladooda maxaa ay yihiin? dadka noocan ah dal walba waa laga helaa oo waa ay joogaan, sababaha kalifayaana waa ay fara badan yihiin oo waxa ay isugu jiraan kuwa leh dana siyaasadeed isla markaana siyaasadda dalka lagaga awood batay oo muuqan waayay, isla markaana raadinaya meelaha ay ka muuqdaan iyagoo doonaya inay hoggaanka dalka qabsadaan. kuwo kale waxa ay leeyihiin dana macaash, isla markaana waxa ay raadinayaan inay sameeyaan dhaqaale aan xad lahayn iyagoo fulinaya dana shisheeye isla markaana xambaarsan fikirka ay dadka tusayaan mid aan ahayn. haddaba haddii aynu isla garanay dadka wadaniyiinta ah ee dalalkooda dumiya iyo ujeedadoodu maxa ay tahay quwadaha waaweyn ee ujeedada iyaguna ay ka leeyihiin inay dal dumiyaan ama ay nidaam meesha ka saaraan? weydiintan warcelinteedu waa mid aad isaga fudud, maxaa yeelay quwadaha waaweyn mar kasta oo ay dal ama dad ka dhex waayaan danaha ay ka leeyihiin waxa ay jecel yihiin inay meesha ka saaraan nidaamkaasi ee dadka hogaaminaya, sidii ku dhacday dowlado fara badan oo ay ka mid yihiin dowladdii Ciraaq ee uu hogaamiyaha ka ahaa Saddam Hussein, dowladda Suuriya ee uu hogaaminayo Bashar al-Assad, dowladdii Soomaaliya ee uu hoggaanka ka ahaa Genaraal Maxamed Siyaad Barre, iyo dowladdii Yamaneed ee uu madaxda ka ahaa Cali Cabdalla Saalax, iyo dowladda imika qiiqaysa ee uu hogaaminayo Abiy Ahmed Cali. binteennii aadka u xiisaha badnayd ee ahayd yaa dumiye dowladaha, halkaasi ayaynu kusoo koobi doonaa iyo waxaan idinla socodsiinaya anigoo Xasan Barre Ducaale. waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.